Filimka ayaa ku bilaabmaya iyadoo ay diyaarad soo cagariganayso garoonka diyaaradaha. Kadib waxaana la tusayaa ninka uu filimku ku socdo Jimmy Fickris, kaasoo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran, oona dhagaysanayay fariin codeed ay hooyadiisa u reebtay, taasoo rajeynaysa inay wiilkeeda aragto marka uu yimaado. Ninkan wuxuu u muuqday mid walwalsan, oo marka uu gurigiisa tagay ayaa wuxuu dhagaysanayay fariin codeed kale oo uga timid saaxiibkiisa Griffin, kaasoo u qalbi qaboojinayay maadaama ay tacsi gashay oo uuna waayay qoyskiisa. Kadib Jim wuxuu aaday baar, wuxuuna Davis iyo Terry oo baarkan lahaa weydiiyey inay wax ka og yihiin waxa qoyskiisa ku dhacay. Terry wuu inkiray inuu ka warqabo waxa dhacay. Jimmy ayaa ninkan xasuusiyey in guriga waalidkiisa uu u dhow yahay, sidaas darteed waa qasab inuu maqlo waxa dhacaya. Terry wuxuu ku adkaystay inuusan waxba ogeyn, oo Jimmy ayuu u sheegay inuu iska baxo. Jimmy ayaa isagoo caraysan dhuunta qabtay Terry, wuxuuna la dagaalamay nin kale oo gadaal ka soo weeraray. Davis ayaa markaas isaga celisay, waxayna Terry ka codsatay inuu sheego waxa uu og yahay. Terry wuxuu caddeeyey in habeenkii ay wax dhacayeen uu arkay 4 nin oo gaangistira ahaa, kuwaas oo galayay guriga waalidkii Jimmy. Wuxuuna maqlay qaylada Jimmy aabihiisa iyo gurigii oo gubanaya, balse ma uusan u tagin sababtoo ah wuxuu ka baqayay in la dilo. Kadib Jimmy wuxuu aaday gurigii waalidkiisa ee gubtay, halkaasoo waalidiintiisa lagu dhex gubay. Hareeraha ayuu eegay isagoo dib u xasuusanaya hooyadiisa iyo aabihiisa. Kadib waxaa filimka nala geenayaa dhowr maalmood ka hor, markaasoo Jimmy waalidiintiisa ay isla gurigan ku noolaayeen. Jimmy hooyadiis waxay George ka codsatay inuu kala qayb qaato nadaafadda guriga maadaama uu wiilkoodu soo laabanayo, sababtoo ah ma rabto in guriga oo qaabdaran uu yimaado. Dhinaca kale ee qisadan, 4 nin oo gaangistira ahaa ayaa daroogo ku dhex isticmaalayay gaarigooda, iyagoo damacsanaa inay qof dhacaan. Waxay rabeen inay dhacaan gabadhan, taasoo bankiga lacag kala soo bixaysay. Burcadu markay arkeen soo bixitaankeeda ayay maaskaro bakaylo u kaa xirteen, iyagoo dabakacayay gaarigii gabadha. Aakhirkii burcadda ayaa gabadhan ku helay waddo cidla ah, kadibna waxay kala soo degeen baabuurkeeda. Mid ka mid ah burcadda ayaa lacagtii ka baaray gaariga, balse waa uu waayay. Isla ma filaan ah Jimmy aabihiisa George ayaa meesha soo maray isagoo baabuurkiisa wata. Burcaddu waxay George u sheegeen inuu meesha ka tago, oo mid ka mid ah raggan ayaa odayga ku dhuftay bud uu watay. Laakiin George waxaa u suurta gashay inuu fiiro oo uu tuuggii madaxiisa kala bajiyo. Dabadeed wuxuu u jeestay kuwii kale isagoo u sheegaya inay meesha ka tagaan. Mid ka mid ah burcadii ayaa George mindi ku fiiqayay isagoo u digaya, laakiin ugu dambeyntii goobtii ayay ka carareen kadib markii ay maqleen seeriga booliiska. Wax yar kadib waxaa goobta soo gaaray booliiskii. George wuxuu booliiska u sheegay inuu kaliya rabo inuu tuugada gabadha ka celiyo oo uusan ujeedkiisuna ahayn inuu wax dilo. Taliyaha dambi baarista oo Holland lagu magacaabo ayaa si jajas ah odayga ku wargeliyay inay ahayd inuu ka fikiro kahor inta uusan dadka bud madaxa uga dhufan. Wax uu xiray George maadaama uu dil geystay. Kadib maalintaas 3dii tuug ee kale waxay u tageen booskooda Warren, iyagoo ku wargelinaya in xatooyadii ay rabeen inay sameeyaan aysan u dhicin sidii ay qorsheeyeen. Markii Warren uu raggan wax ka weydiiyey walaalkiisa, ayaa u naxay markii uu ogaaday inuu dhintay. Isagoo ka caraysan geerida walaalkiisa, ayaa Warren uu burcadu ku amray inaysan halkan ku soo laaban, iyagoo aan George soo dilin. Markii George uu guriga ku soo laabtay kadib markii damaanad lagu sii daayay, ayaa tuugadii uu ku jiray Warren ay gurigiisa u soo daba kaceen. 2 nin ayaa albaabka garaacday, halka 2dii kalena ay gadaal guriga ka soo galeen iyagoo weeraraya hooyadii. George derbiga ayaa lagu qabtay isagoo ay mindi afka ka saaran tahay, waxayna u sheegeen in ay ahayd inuu maalintaas faraha la soo gelin. Dabadeed burcaddan ayaa lamaanaha ku xiray kuraas taalay garaashka, waxayna ku qubeen shidaal. Markii ay bilaabeen inay cabaadaan, ayaa Warren uu janto shiday isagoo nolosha ku gubaya 2dii waayeel. Filimka waxaa markaas naloo soo celinayaa waqti xadirkan, markaasoo Jimmy uu taagnaa isla garaashkii waalidkiisa lagu gubay. Saaxiibkiisa Griffin oo booliis ka tirsanaa ayaa Jimmy u sheegay in qof daris ka mid ah uu sheegay in habeenkii ay wax dhacayeen uu arkay gaari madow oo xooli ku socday, balse uusan arkin taargadiisa. Griff wuxuu u malaynayaa in burcadii ay had kahor George isdagaaleen ay dilkan ku lug leeyihiin, laakiin bileysku wax caddayn ah uma hayaan arrinkaas. Jimmy ayaa markaas Griff ka dalbaday inuu u keeno muuqaaladii ay kaamirooyinka CCTV-ga duubtay markii uu aabihiisu la dagaalamayay burcadii wax dhacaysay. Subaxdii xigtay Jimmy wuxuu aaday qabrigii waalidkiisa. Kadib isagoo kaniisada ku sugan ayaa xaaskiisa Morgan ay u timid. Halkan waxaan ka ogaanaynaa in Morgan iyo Jimmy ay qarka u saarnaayeen inay isfuraan kahor musiibadan. Morgan waxay seegeeda u sheegtay inay 5 jeer soo wacday kahor inta aan la aasin waalidkiisa, balse uu taleefanku ka qaban waayay. Markay dareentay in Jimmy uu murugaysan yahay, ayay u qalbi qaboojisay iyadoo u sheegaysa inuu gurigeeda imaan karo. Maalintii xigtay Griff wuxuu kulan la yeeshay Jimmy, wuxuuna u sheegay in gaarigii madowaa uu leeyahay Warren, kaasoo ahay walaalka ninkii uu George sida lama filaanka ah u dilay. Kadib wuxuu Jimmy ku wareejiyey muuqaalka ay CCTV-ga ka duubtay dhacdadaas.
habeenkii marka uu Warren Jim ka soo baxay ayaa qof uu baabuurkiisa gadaal ugu dhuftay baabuur kale. Markuu gaarigiisa ka soo degay ayaa wuxuu arkay Jimmy oo dhex fadhiyay gaarigii kale, wuxuuna bilaabay inuu aflagaadeeyo. Jimmy maadaama uu ka tirsan yahay ciidamada sida gaarka u tababaran, waqti dheer kuma qaadan inuu ninkan garaaco oo uuna ka adkaado. Markii Warren uu soo toosay, wuxuu is arkay isagoo ku xiran kursiga hore ee gaarigiisa, halka Jimmyna uu shidaal ku bilbilayay. Jimmy ayaa ninkan xasuusiyey lamaanihii uu dilay 2 toddobaad ka hor. Warren halkii uu cafis dalban lahaa ayuu bilaabay inuu sii caytamo, isagoo ku andacoonaya inuu wax sax ah sameeyey. Jimmy isagoo caradiisa xakameynaya ayaa wuxuu ninkan ka codsaday inuu waraaq ugu qoro xubnaha gaangiskiisa uu ka kooban yahay, markaas kadibna uu fasixi doono. Marka uu Warren qoray magacyada ayaa Jimmy uu sigaar shitay oo Warren ayuu nolosha ku gubay. Kadib waxa uu tagay Morgan, ma uusan awoodin inuu la sii sheekaysto sababtoo ah dhaawac mindi ayaa calooshiisa ku yaalay. Markii uu kacay ayaa Morgan ay aragtay dhiigga shaarkiisa ku yaala, waxayna bilowday inay ka daweyso dhaawaciisa. Inkastoo lamaanahan ay doonayeen inay isfuraan, haddana dhacdadan waa isku soo dhaweysay, taasoo keentay in Jimmy uu habeenkaas guriga Morgan ku hoydo. Maalintii xigtay warbaahintu waxay soo tabinayeen geeridii Warren. Qof walba uu ogsoon yahay in ninkan uu ahay gangster dila ah oo daroogada ka ganacsada. Markii mid ka mid ah burcadda oo ahay Rob uu arkay waxa dhacay ayaa isaga iyo Leon ay u dhaqaaqeen dhanka nin lagu magacaabo Caleb, kaas oo Warren ay ganacsi wadaag ahaayeen, iyagoo moodayay inuu isagu dilay. Labadan nin ayaa ninkii gurigiisa weeraray, balse Caleb waxba kama oga waxa ay sheegeen. Markaas xaaskiisa ayaa badbaadisay, wuxuuna Caleb iska fogeeyey eedeymihii raggan, wuxuuna Rob iyo Leon uga digay inay dib dambe ugu soo laabtaan gurigiisa. Habeenkii Griff wuxuu booqday Jimmy, wuxuuna kula taliyey inuusan aargoosi kala geysan maadaama ay boolisku dabagal ku hayaan. Laakiin Jimmy booliska ma baqayo sababtoo ah horay ay cadaalad ugu keeni waayeen, wuxuuna diyaar u yahay inuu ka arguto burcadda u harsan. Kadib Griff wuxuu aaday goob ay wax ka dhaceen, halkaasoo tuugo hubaysani ay nin ku dileen iyagoo rabay inay dukaankiisa dhacaan. Halkan Griff wuxuu ugu dambeyntii garwaaqsaday ceebaha ka jiray waaxda booliska, kadib markii uu taliyey Holland afcad ku sheegay in dukaanluhu uu isagu dhibkan isku keenay maadaama uu la dagaalamay tuugo hubaysneed. Marka Griff uu taliyaha u sheegay in ninku uu xoolihiisa difaacanayay, ayaa Holland uu Griff xasuusiyey inuu kaliya howshiisa qabsado oo aysan waxbana ka gelin waxaas. Dhan kale Jimmy wuxuu sii waday ugaarsigiisa, wuxuuna u gudbay Ryan, kaasoo burcadda ka tirsanaa. meel musqul aheyd ayuu ku helay oo ku dhex garaacay, kadibna wuxuu geystay goob cidlo ah. Kursi ayuu ku xiray oo afkiisa ayuu bir ku kala qabtay. Maadaama uu garanayo noocyada kala duwan ee jirdilka, Jimmy ayaa ninkan afka shamiindo ugu shubay oona laqsiiyey shamiintadii ilaa ay neefta ku ceshmooto. Maalintii xigtay boolisku waxay heleen meydkii Ryan oo sanam camal u yaala kadib markii uu shamiindo ka dharkay. Holland baaritaan kiiskan waa uu xiiseynayaa sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay inuu dalcad ku helayo. Intaas kadib Terry oo ahaa mulkiilaha baarka ayaa Holland tusiyey muuqaalka ay duubtay kaamarada CCTV-ga, halkaas oo ay ka arkeen Jimmy oo gaarigiisa ku qaadanaya ninkii Ryan ahaa. Inkastoo Davis ay ninkeeda kula talisay inuusan booliska tusin muuqaalka, ayaa haddana Terry uu ka baqayay inay burcaddu baarkiisa u gubaan sida guriga George oo kale. Boolisku waxay Morgan weydiiyeen inay Jimmy aragtay. Ben ayay boolisku u sheegtay inkastoo Jimmy uu markaas ku dhuumanayay gurigeeda. Kadib Jimmy wuxuu aaday suuqa, halkaasoo ay 2 nin boolis ahi soo daba kaceen. Markii ay xiri rabaan ayaa baabuur oo si lama filaan ah meesha u soo istaagay. Waxaa ka soo degay 2 nin oo jir ahaan dhisnaa, kuwaas oo weeraray askartii, taasoo Jimmy fursad u siisay inuu la baxsado. Halkaa markay xaaladdu marayso ayaa Jimmy uu la yaabay inuu arko Cornel Leach oo gaariga ka soo degaya. Maadaama uu Jimmy ahmiyad gaar ah u leeyahay ciidamada sida gaarka u tababaran, ayaa Cornelka uu ninkan u yimaaday si uu dib ugu soo laabto. wuxuu ugu dambeyntii Jimmy siiyey 48 saacadood oo dheeraad ah si uu uga arguto gaangistradii u haray. Markaas kadibna waa inuu dib ugu soo laabtaa shaqadiisa. Dhan kale Griff wuxuu u tagay saaxiibkiisa Joe oo hogaaminayay ciidankii SWAT, wuxuuna ka codsaday in kiiskan ay soo dhex gelin. Isagoo ka shakisan inuu wax qaranayo, Joe wuxuu Griff weydiiyey inuu garanayo dilaaga. Griff ayaa markaas runta sheegay, wuxuuna u sheegay in dilaagu uu yahay saaxiibkiisa Jimmy, kaasoo waalidkiisa si xun loo dilay. wuxuu kaloo Griff ninkan u sheegay in Holland uu ayaga ka faa'iideysanayo maadaama uu kaliya rabo inuu dalcad ku helo kiiskan. Aynu u noqonno Jimmy, kaasoo sii waday argoosigiisa kadib markii ay boolisku qaban waayeen. waxaynu aragnaa Leon oo baar fadhiya, waxaana loo keenay bashqad ay ku jirtay Ryan-kii dhintay sawirkiisa. isagoo filaya inuu khatar ku sugan yahay ayaa uu baarkii ka soo baxsaday oo uuna orday. kadib Jimmy ayaa ninkan soo qabtay oo madax bir uga dhuftay. markii uu miirka u soo laabtay, Leon wuxuu is arkay isagoo xiriiran oo dhulka yaala, halkaasoo ay lugihiisu ku xirxirnaayeen silsilado albaabka ku xirnaa, halka qaybtiisa korna ay ku xirnaayeen silsilado kale oo gaariga kula xirnaa.
leon waxba kama oga sababta loo jirdilayo, taasina jimmy ayay ka sii caraysiisay oo wax naxariis ah ma uusan tusin ninkan. baabuurkii ayuu markaas fuulay oo si xawli ah ayuu u waday, taasoo laba qaybood u kala goosay leon. maanta xigtay corneliij wuxuu maqaayad ku arkay taliya holland, wuxuuna ka codsaday inuu ku wareejiyo cadeymo kasta oo ay boolis ka hayaan jimmy, wuxuuna u sheegay in jimmy uu ka tirsan yahay ciidamada qaranka. markuu tani maqlay holland ayaa diiday oona korneelka u sheegay inuu ninkaas soo xirayo. ugu dambayn korneelka waxa uu holland ka dalbaday inuu jimmy fursad u siiyo inuu ka arguto burcadii u harsanaa. holland ayaa taasi diiday, balse korneelka ayaa iskaga soo tegay isagoo ninkan ugu goodinaya inay isfarasaari doonaan haddii uu jimmy waxyeeleeyo. muuqaalka qaybtiisa xigta waxaynu aragnaa taliyaha booliiska iyo kan xoogga oo kulan gaaban qaadanaya. taliyaha xoogga ayaa taliyaha booliiska ka dalbaday in aan jimmy la soo xirin wax kasta oo dhaca, sababtoo ah jimmy wuxuu muhiim u yahay ciidanka xoogga iyo kan sirdoonkaba. wakhti dambe haweenkaas, roob oo ahaa shakhsigii ugu dambeeyey ee ka haray burcadii jimmy waalidkiisa dilay, ayaa u socday baando kale oo daroogada ka ganacsata. jimmy wuxuu ninkan ku qasbay inuu albaabku garaaco isagoo gaashaan ahaan u adeegsanaya. roob oo dhaawacmay ayaa markii dambe meesha ka carray. waxa uu jimmy dilay dhammaan kooxdii daroogada ganacsanaysay marka laga reebo kaalib, kaasoo ay waaran ganacsi wadaag ahaayeen. jimmy ayaa ninkan kursi ku xiray, waxa uuna baaldi ku qasay xoogaa ka mid ah kiimikooyinkii ay raggan u isticmaalayeen inay daroogada ka sameeyaan. kadib jimmy ayaa kaalib lacagiisii kaash ku riday baaldiga kahor inta uusan isagana madax ugu shubin kiimikadii, taasoo ninkan isagoo nool dhalaalisay. dhan kale taliya holland wuxuu ogaaday in griffin uu la socdo tallaabo kasta oo saaxiibkiisa uu qaadayo, wuxuuna markaas weydiiyey cid xigta ee uu beegsan rabo. si kastaba ahaatee griffin ayaa diiday inuu sheego, wuxuuna ka dalbaday inuu ninkaas ka haro, laakiin holland ayaa ka biyo diiday. kadibna wuxuu tegay isbitaalkii uu roob oo burcadii ka haray uu ku jiray, kaasoo xalay ka soo baxsaday goobtii ay wax ka dhaceen. tuugan isagoo dhutinaya ayuu aaday gurigii jim isagoo raadinayay macluumaad ku saabsanaa. muddo kadib jimmy ayaa ninkan nolosha ku qabtay, wuxuuna u kaxeeyey meel u dhoweyd dekedda. isagoo gacmaha ka xirxiran ayuu fadhiisiiyey, wuxuuna la soo baxay cirbad isagoo u sheegaya inay tani tahay sun khatar badan oo gubaysa gudaha jirka bini'aadanka. roob ayaa markaas jimmy candhuuf ku tufay, wuxuuna u sheegay inuu fiiriyo qaybta dambe ee gaariga. si layaab leh waxaa soo baxday in roob uu morgan dilay kahor inta uusan jimmy soo aadin. isagoo murugo iyo quus taagan ayaa jimmy uu roob xabado ooda kaga qaaday ilaa uu ka dhinto. waxaa markaas goobta soo gaaray ciidankii swat oo holland la socda. griff ayaa sidoo kale yimid, kaasoo holland u caraysnaa maadaama uu roob u fududeeyey inuu isbitaal ka soo fakado kadibna uu dilo xaaskii jimmy. holland ayaa sheegay inuu ninkan u fasaxay si uu jimmy u soo qabto, balse ma uusan ogeyn inuu xaaskiisa dili doono. markii uu arkay wejiga dhabtaa ee holland ayaa kabtankii ciidanka swat oo ahaa joe uu kooxdiis ku amray inay dib u degaan, oo holland oo yaaban ayay jimmy u oggolaadeen inuu iska baxo. markaas holland ayaa isku dayay inuu keligiis istaajiyo kahor inta uusan meesha ka baxsan. jimmy ayaa feer wejiga u geliyey holland, taasoo keentay inuu ugu dambayntii ka haro. markaas filimka ayaa ku dhammaanaya meel luuq ah, halkaasoo gabar ay qashin ku daadinaysay. laba nin oo aan la garanayn ayaa is hortaag ku sameeyey oo qabsaday gabadha, halka ay iyaduna caawimaad dalbanaysay. dhinaca kale ee luuqa, jimmy ayaa ka soo muuqday oo tuugtan dhankooda u soo dhaqaaqay isagoo u sheegaya inay gabadha ka leexdaan. wuxuuna muuqaalka ugu dambeeya ee filimka ku dhammaanaya iyadoo jimmy uu dhoola caddaynayo. subscribe sar kanalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanalka. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.